ardayda ka timid koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ee wax ka baratay jaamacadaha kala duwan ee ku yaala magaalada Boorama ayaa waxay xalfad sabootina oo ay ugu magac dareen Boorama Changes taasi oo ay ku sabootinayeen dadweynaha magaalada Boorama iyo jaamacadii ay ka baxeen ay wax ka barteen. Munaasabadani ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin fara badan oo ay ka mid yihiin hormuudada jaamacadaha kala duwan ee ku yaala gobolka Awdal, maamulka gobolka ka degmada iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Boorama, salaadiin iyo waxgarad. waxaana hadaladoodii ka mid ahaa jaamacada xuduud malagaal iyo islaamka xari waa la sokeeyay inta halkan joogtay muslimin ma waa sokeeyay waliba Soomaaliya marka ninkiisu qofkii shuruudaha buuxiyo waa ayuu mar labaad baan idinku celi aad iyo aad baan idinku runtii annaga laftayda aanu raalli idinka ahayn. We are very definitely proud of you inaad nala joogtaan. Nukumaanu qaadan imkoo kale nuumaanu eeginin gobahaan laakiin waxa loo eegaa tayada ardayga iyo akhlaaqdiisa. waxa laga yaabaa qofku isagoo tayo leh laakiin haddii akhlaaqdiisu waxoogaa yar janjeedho inaan isniraano war ummaddaad iyo ninkan u dhiibaysaane akhlaaqdan doorbidno. marar badan baa dhalinyar ka timid bartamaha ama koonfurta Soomaaliya oo kale ama maaragta ama Puntland ha noqoto ama Soomaaliya ha noqoto iyo maaragta koonfurta Soomaaliya ha noqoto ama Soomaalida Itoobiya ha noqoto meelo badan dhalinyar badan oo halkan wax ku baratay runtii marar badan way qalin jabinayeen laakiin waxay ahayd markii ugu horeysay ay dhalinyartu isku tagtay maxay naga badan tahay Boorama waa tanis oo aniga laftayda waan u mahadcelinayaa idinkana waa idin mahadcelinayaa ardayda tirada intaa leeg ee magaalada Boorama joogta ee sharaf ku joogta ee dhowrsanaan ku joogta ee dhibyari ku joogta ee waxtar mooyaane aan haddaba wax dhibaato ah oo laga sheeganaya in jirina idinkana aad baa idinku mahadcelinayaa. dhalinyar aad u sharaf badan baa tihiin, dhalinyar qiimo badan baa lahaydeen. كل يروتي تاريخ الحسن دكتور اللي بيلو دكتور اللي كلمتينا هدين بورما ما بحث نقدين أنا إذا كان بقول بقول لكم هذا اللي يا كلمة إيو هل كان يجي تعيتينا روتي أنا جاي أو وحويا ومضى هذا ومد كل دورة يتحل سكسين جماعنا لكن واحد كل دورة وحيعرفه الحمر كانوا وحيعرفهم قام أنا وحكمل تكنولوجيا هذا هاي أنا هو دين هو إنه كمبيوتر ده مقالة اسمه ورحمة هاي ما كلا دمين لو كان في الحياة جرانا وحنا خبرنا لو كان في الحياة مركب أمد هذا يسكت ما تو وحبي كلا بركة وحبي نقبرنا يسين وحنا نقبرنا sidoo kale munaasabadani waxa ka hadlay qaar kamid ah ardaydan soo qaban qaabisay munaasabadani sida ogtihiin ardaydaasi aad iyo aad bay u farabadnaayeen ودواد الحجاريين سدح بقول عبد كلية لبضة جامعة كم سيجنا بسيرة سر لبضة جامعة عمود يا إلهي هكرامي مقعود نقول الله تعالى سيدا سدرت أرضيدا كتمت قومها سعيدين سوشيغيا برتمها يكونفورت الصوماليا وحا أي ما أنت ومهد علينيان برشدا شرفت بدن sida wanaagsan u soo dhaweysay ayaga iyo waalidiintooda ardaydii waalidkii qiimaha badnaa walaalihii asxaabtii aan iloobi karin khubaradii iyo rugcadaayadii ku caanbaxay aqoonta ee soo saaray dad badan oo mug iyo muuqaalba ku leh dhammaan dadka Soomaaliyeed ayay si qaas ah waxay ardaydaasi maanta ugu mahadcelinayaan bulshooyinka Boorama oo aan soo sheegnay qaybaheedaas kala duwan ee iminka aan carabka ku dhuftay dhammaantood si gaar ah ayay ugu mahadcelinayaan sidoo kale waxa ay u mahadcelinayaan bulshooyinka Soomaaliland. waa Axmed Faarax Barakaale shabakada wararka ee Boorama online magaalada Boorama.